بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. meel kasta joogtaan kusoo dhawaada warbixin gaar ah oo ku eegayno hadalhaynta sare martay ee labadii maalin ugu dambeysay aad looga hadalhayay baraha bulshada kadib markii la arkay kanaalka Suez ee Masar oo uu ka gudbiyo markab ciidamada Israel ay leeyihiin oo hub u sida dhinaca Israel. Markabkan inuu halka ka gudbo waxay dhalisay hadalhayn weyn sabab la xiriira in hubka iyo wax kasta uu sida markabkan ay yihiin wax lagu dili doono isla markaan lagu weerari doono marinka Gaza ee dhulka Falastiiniyiinta. Haddaba warbixintan ayaa waxay ku siinaysaa wax kasta oo aad iska weydiinaysay ama wax walba oo ku saabsan markabkaas oo si weyn loogu arkay baraha internetka. Markabkan oo ah markab dagaal ayaa muuqaaladii la baahiyay waxay muujinayeen isagoo ay ka babanayaan calanka Israel iyo ka Masar kana gudbaya kanaalka Suez. Hadalhayn badan iyo dhaleeceyn badan oo loo soo jeediyay Masar waxa ay ku qasbanaadeen dowladda Masar inay hadal ka soo saaraan. hadalkan oo saacado ka hor ka soo baxay maamulka kanaalka Suez ee Masar waxay sheegeen in dhammaan maraakiibta haddii ay ganacsi tahay amaba ay kuwa militariga yihiin bayna xaq u leeyihiin inay si xor ah uga gudbaan marbiyoodka istiraatiijiga ah ee kanaalka Suez. Tanina waa falcelintii ugu horeysay oo rasmi ah ee muuqaalada sida weyn loo wadaagay ee laga duubay markab dagaal oo Israel ay leedahay oo marayay kanaalkaasi Suez ay dowladda Masar ka soo bandhigto. War-saxaafadeedkan ka soo baxay maamulka kanaalka Suez ee loo soo gaabiyo ama ay maamusho hay'adda magacada loo soo gaabiyo SCA ama iska ay dowladdu maamusho isla markaana ka mas'uulka marbiyoodkan isku xira badda Mediterranean-ka iyo badda Cas ayaan lagu soo hadal qaadin muuqaalkan kaasoo muujinaya dad tiro yar oo Masaari ah oo daawanaya markabka Israel oo sii gudbaya isla markaana habaaraya Israel iyagoo markaa ka caawanaya in dowladoodu ay ogolaatay si uu u adeegsado kanaalkan. Waxayna markaa sheegayeen isla markaan ku dhaleeceynayeen dowladoodu inay tahay mid ka qayb qaadanaysa xasuuqa ka soconaya marinka Gaza iyo dadka rayidka ee Falastiiniyiinta ay Israel ku laynayso hubka ka gudbaya isla marinkooda. Markabkan oo ka soo shiracday koonfurta badda Mediterranean-ka kuna sii jeeday badda Cas ee gudaha Israel ayaa wuxuu ka babanayay calanka Israel iyo ka Masar. Shuruucda kanaalka Suez iyo gudahan badda ayaa wuxuu dhigayaa in markab kasta marka uu soo galo bad uu dal leeyahay in la suro calankiisa. Taasna waa sababta ugu arkaynay calanka Israel iyo ka Masar oo iska garab babanaya oo ku xiran markabkan ciidanka Israel ay leeyihiin hubka u sida. Waa wax la mid ah sharciyan in markab kasta oo soo maray biyaha Soomaaliya meel kasta oo dunida u socdo wuxuu ku qasban yahay inuu calanka Soomaaliya surto. Si la mid ah ayaa hadda khasabtay in calanka Masar iyo kan Israel ay isku meel ka babanayeen. Balse dadka reer Masar ee ku sugnaa goobta kanaalka Suez oo sida lama filaanka u arkay markabkan uu ka laloonaya calanka Israel ayaa si weyn u habaarayay Israel xasuuqii ka wada marinka Gaza sidoo kalena dowladooda ay si weyn u dhaleeceeyeen. Balse hadalka ka soo baxay maamulka kanaalkan Suez ayaa ahaa markii labaad oo muddo 7 gudahiisa ay mas'uuliyiinta Masar ay ka jawaabayaan eedeymo baraha bulshada lagu baahiyay oo la xiriira xiriirka Qaahira iyo Tel Aviv xilli nacaybka Israel loo qaaday oo sare maray kadib xasuuqa Israel ee naxariis darrada ee ka wada marinka Gaza. Qaar badan oo ka mid ah dadka isticmaala baraha bulshada ayaa ku dhaleeceeyay mas'uuliyiinta Masar inaysan qaadin talaabooyin ciqaab ah oo ku filan Israel si ay uga jawaabaan xasuuqa Israel ay geysanayso in marinka Suez oo ah marin muhiim ah oo Mediterranean-ka iyo badda Cas isku xira inay si xor ah Israel u adeegsato isla waxa ay marinayso Israel marinkaasna inay yihiin hubka iyo bombooyinka lagu qarxinayo dadka reer Falastiin ee marinka Gaza. Masar waxay heshiis nabadeed la saxiixatay Israel 1979 waxayna noqotay wadankii ugu horreeyay Carabeed ee heshiiska la sameeyay Israel kadib markii Masar iyo Israelba oo ilaa 4 dagaal uu dhex maray intii u dhaxaysay 1948 iyo 1973 waana wax u dhigma in tan iyo markii la aasaasay Israel oo sida xoogga dhulka Falastiiniyiinta ay u bilaabatay in looga qaato si wax la yiraahdo maamulka Israel loo dhiso ilaa iyo markii heshiiska dhacayay sanadkii 1973 inay labada dhinac dagaalamayeen. Balse Israel ayaa in ka badan muddada ay dagaalameen Masar iyo Israel waxa ay duulaan ku qaaday marinka Gaza ee Falastiiniyiinta. muddada 45 sano ah ee xiriirka ay leeyihiin Israel iyo Masar waxa daadanayay dhiigga Falastiiniyiinta. Mar walbana waxa loo arkay in xiriirka Israel ay la leedahay Masar inuu u fududeeyay inay si weyn u xasuuqdo Falastiiniyiinta sababa la xiriira xadka ay Masar la leedahay marinka Gaza inuu u fududeyn karo furitaankiisa iyo taageero loo ogolaaday inuu u maro Falastiiniyiinta inay Falastiiniyiintu awood u yeeshaan inay ka takhasusaan Israel dibna u soo ceshadaan dhulkooda. Balse taasi ma sameyn Masar oo Masar waxay ka dhigtay dhulkii Falastiiniyiinta ee marinka Gaza xabsi dusha ka furan. Maamulka kanaalka Suez-na war-saxaafadeedkooda hadda ay soo saareen waxay ku sheegayaan ama ay ku yiraahdeen maamulka kanaalka Suez wuxuu xoogga saarayaa sida ay uga go'an tahay hirgelinta heshiisyada caalamiga ee damaanad qaadaya inay si xor ah
uga gudbaan maraakiibta isaga gudbaya kanaalka Suez haddii ay yihiin kuwa ganacsi ama ciidan iyadoon loo eegayn dhalasho ahaan ayaa lagu yiri war-saxaafadeedkaas oo mas'uuliyiintu sheegeen inuu jawaab u yahay su'aalaha la iska weydiiyay muuqaalka lagu baahiyay baraha bulshada ee sida lama filaanka ah iyadoo loo adeegsanayo dhulkooda marin laga gudbiyo hubka lagu gumaadayo Falastiiniyiinta. Dhinaca kale toddobaadkii hore dabeeqadiisii ciidanka Masar ayaa lagu khasbay inay ka jawaabaan eedeymo loo soo jeediyay oo baraha bulshada lagu baahiyay kadib markii la sheegay in markab u sida bombooyin iyo hub Israel inuu ku soo xirtay dekedda Mediterranean-ka ee magaalada Alexandria. shicnadan oo u badneed waxaa qarxa ayaa la sheegay in loo waday Israel. taasi waxay ahayd markii Khamiistii toddobaadkii hore warbaahinta iyo baraha bulshada ay qabsatay in dekedda Alexandria martigelisay markab dunida oo dhan laga soo diiday oo hub iyo bombooyin u siday Israel. balse ciidamada Masar hadal ama war-saxaafadeed soo saareen oo uga falceliyeen markabkaasna waxay ku sheegeen ciidanka qalabka sida Masar waxay si cad u beeninayaan waxa lagu faafiyay baraha bulshada iyo xisaabaadka shakhsiyeed iyo dhaleecaynta loo soo jeedinaya ciidamada ku saabsan inay caawinayaan Israel iyo howlgalkeeda military ee ka wado dhulka Falastiiniyiinta. hadalkan ka soo baxay ciidamada Masar ayaana soo baxay maalin kadib markii koox taageersan sharciyada Falastiin kana soo horjeeda xasuuqa Israel ee wado ay dacwad ka gudbiyeen maxkamad ku taala magaalada Berlin markabkan iyagoona sheegay in la joojiyo shixnad 150 tan oo walxaa qarxa oo ku ranayd markabka MV Catherine oo Jarmalka ka soo baxay kaasoo la sheegay inuu u socday Israel wuxuuna waday hubka iyo walxaa qarxa ee ugu ballaaran ee marinbiyada ay marsiiso Israel waxayna ujeedku ahayd inuu gaaro Israel. balse markabkan lagu magacaabo MV Catherine ayaa waxay qaadatay muddo dheer inuu soo gaaro dhinaca Israel kadib markii laga diiday inta badan dalalka caalamka. markii dambase isniintii toddobaadkii hore ayuu ku soo xirtay dekedda Alexandria halkaas oo ah dekedda ugu dhow ee Israel. taasina waxay u fududeysay Israel inay si dhib yar ku hesho markabkii dunida dhan laga diiday. inkastoo qoraal ay soo saareen ciidamada Masar oo ay xigtay qoraal kale oo isla Khamiistii toddobaadkii hore ka soo baxay wasaaradda gaadiidka ee Masar lagu sheegay in markabkan ku soo xirtay magaalada Alexandria oo u dejinayo shixnad u rarneyd wasaaradda wax soo saarka militariga Masar. waxayna sheegeen inuu ahaa markab ka yimid dhinaca Turkiga balse uusan xiriir la lahayn dhinaca Israel. laakiin hay'ad ku taala Yurub oo sharciyada taageertay isla markaana aad diiradda u saartay xasuuqa ka soconaya dhulka Falastiin ayaa warbixin soo saartay dhinaceeda in walxaha qarxay markabkan uu siday in loo isticmaalayo dagaalka Israel ee ka wada Mareykanka Gaza oo laga yaabo inay gacan ka geysataan dambiye dagaal ee xasuuqa Israel halka ka wado. sababtoo ah war-saxaafadeed ka soo baxay hay'addan waxaa lagu sheegay walxaha qarxa ee u socday Israel oo markabkan MV Catherine uu sido in laga soo diiday dhowr dekedood oo Afrika iyo Mediterranean-ka ku jira. dalalka diiday markabkan inuu ku soo xirtana waxaa ka mid ah Angola, Slovenia, Montenegro iyo Malta sida ay xaruntu sheegtay. waxayna sheegeen in maamulka Boortaqiisku uu sidoo kalena diidayba in markii uu ku dhawaa biyaha Boortaqiiska in calanka Boortaqiiska markabkaasi la suro. balse si fudud wuxuu markabkan ugu soo xirtay dhinaca Masar gaar ahaan dekedda Alexandria walow Masaaridu ay diideen. Masar ayaa hadda si weyn dhaleecayn uga kulmaysa in mar horeba uu sare marayo doorka ay Masar ka qaadanayso xasuuqa Israel ee ka wado marinka Gaza. aad ayaa loo dhaleeciyay dadweynaha Masar ayaana sidoo kale la arkay in si weyn arintan uga soo horjeedaan. waxaana jira walaac laga qabo in ay tani dhalayso kacdoon weyn oo gudaha ah sida lagu sheegay warbixin wargeyska The Nation uu soo bandhigay oo ka soo baxa Bariga Dhexe.